shirka sanadlaha ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Uganda ayaa waxa lagu qabtay magaalada Kampala ee caasimadda wadankaasi. Faafahinta warkan waxa magaalada Kampala inaga soo diray wariyahayaga Shaafici Cusmaan. Shirkani oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed ee dalka Uganda ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaasha ururada ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha dalka Uganda iyo xubno kale oo kamid ah ardayda Soomaaliyeed. Madashani oo noqonaysa mid sanadle ah oo sanadkiiba mar ay isku xoguraysan doonaan hogaanada ururada ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha dalka Uganda iyo kan ardayda qaranka Soomaaliyeed ayaa looga arinsan doonaa masiirka iyo aayaha ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata guud ahaan dalka Uganda. Ugu horeyntii gudoomiyaha midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed ee dalka Uganda Cabduqaadir Cumar Cabdulle Fiidka oo shirka daafuray ayaa sheegay inay muhiim tahay in ardayda Soomaaliyeed ay helaan adeegyada ay u baahan yihiin isagoona gudoomiyaasha ku amaanay shaqada wanaagsan ay u hayaan ardayda Soomaaliyeed Soomaaliyeed ee jaamacadaha Uganda iyo wakiilada kale iyagana nagala jooga daladaha ama ururada kale ee ka dhisan dalka Uganda iyo xubnaha kale ardayda iyaguna firfircoon kamid ah inaan idinka mahadceliyo sidaad shirka u soo ajiibteen iyo runtii hawlaha kale ee wanaagsan ee u heesaan ardaydeena Soomaaliyeed. intaas kadib madashan in ay tahay madal sanadla ah oo laakiin sanadkan ay tahay tii koowaad waxaan rajaynaynaa inay noqoto mid sanad walba markaasi dadka muhiimka u ah ardaydeena ama indhaha u ah oo ay gudoomiyaasha jaamacadaha ugu horeeyaan inay isku arkaan oo ay markaasi masiirka iyo danaha ardayda Soomaaliyeed ay kaga hadlaan insha Allah. waxaan rajaynaynaa mid wax ku oolo miro dhala oo jiilba jiilka ka dambeeya oo ka sii dhaxlay inuu noqon doono insha Allah. qodobada ama ajandayaasha shirka hadda inoogu furan sidaad u jeedaanba qodobka noogu muhiimsan oo caqabadaha soo wajaha inta badan ardaydeena iyo sidii loo xalin lahaa halkan kuleyto waa isla wada fiirin doona marka gudoomiyaasha jaamacadahan inta badan haduu alla idmo ahmiyada siin doona maadaama waqtigan uu nagu yar yahay inaan qodobkaas si fiican aan markaas ugu wada hadalno sidoo kale intana aan markaan caqabadihii aan helno kadib inaan xalkeedii sidii loo xalin lahaa inaan markaas isla garanno kadibna wixii aan ka dhigno wax miro dhalo shaqeeyo haduu alla idmo. Mas'uuliyiintii shirka ka soo qayb gashay ayaa ka dooday qodobka ugu muhiimsanaa ajandayaasha shirka sanadkan oo ahaa caqabadaha soo wajaha ardayda iyo sidii xal loogu heli lahaa iyadoona gudoomiyaasha jaamacadaha ay isdhaafsadeen aragtiyadooda ku aadan xalka caqabadahaasi. ardayda fiisayaasha jaamacadeena imtixaan markii la sameynayo bas ardayda fiisayaasha raadsataa jaamacadda imtixaan ma sameyn kartid adoon fiisa ku saarnayn. waxaa dhacday ardaydii anagoo one week ugu dambeeyay in qof walba Soomaali uu dhaho fiisa ma haysto poor research skills waxaan arkaynaa qaarkeena research inuu dib nagu yahay buugiyo kale marka la sameynayo kale inta badan nagu adag yahay ina horta taa kalsooni yeelataa fiican wixii sameyn kartid aamin haddaadan sameyn poor research skills haddii masterkii ma wadi kartid. waxaad arkaysaa arday 5 sano joogay digriigii buu bartay masterkii buu bartay 5 sano ka bacdi wuxuu soo xasuusanayaa luqadii inuu san aqoonin markaas wax kale inuu Soomaaliya raba inay aado luqadiina ma aqaan waxa isiisa direction. ugu dambeyntii qodobadii looga hadlay shirka iyo waxyaabihii ka soo baxay waxa warbaahinta la wadaagay Bakar Cali oo ah gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda caalamiga ah ee Kampala. kulanka ay wada yeesheen gudoomiyaasha jaamacadaha ardayda Soomaaliyeed xubno ka socday sida guud ardayda iyo madaxda midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed oo horkacayay wakiilka Uganda oo fadhiya Mudane Cabduqaadir Fiidka. ajandaha shirkan sanadlaha ah wuxuu ahaa 3 qodob. qodobka koobaad wuxuu ahaa in gudoomiyaasha ay isdhaafsadaan warbixino waxyaabo u qabsoomay sanadkii tagay si fiican ay gudoomiyaasha ugu warbixiyeen la isku dhaafsaday xogaha kala gedisan ee sanadkii 2019 qabsoomay. qodobka labaad wuxuu ahaa qorshaha sanadka cusub ee 2020 u yaala ururada kala duwan ee ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Uganda. waa qorshe ugu muhiimsanaay oo sanadka 2020 gudoomiyaasha si wada jira iyo bahda maqso ay u falanqeeyeen in 2020 la gaaro achievements qurux badan. qodobka saddexaad wuxuu ahaa caqabadaha haysta ardada iyo way faawadkooda ama maaragtay sida looga bixi karo oo maaragtay solutionskooda
caqabadaha aad ayaa looga sheekeeyay sida ardaydu markay yimaadaan oo maaragtay bilaawayaan wax jaamacadaha ama waxbarashadii waxyaabaha ay isticmaalaan sida boodooyinka iyo falalka shilalka u yimaada adiga wax caqabada oo mar walba la soo kordha ardada ay arkeen gudoomiyaasha jaamacadaha iyo xubnaha ka ahba aad ayaa loo falanqeeyay sidoo kale xalka ayaa asna la falanqeeyay saddexdaas ciwaan ayuu u badnaa shirka sanadlaha ah lagu falanqeeyay runtii aad ayaa maaragtay looga guul gaaray kulanka wuxuuna ku soo dhamaaday si farxad ah si maaragtay reen ah isfahan ah waxaana lagu ballamay in ardada Soomaaliyeed ee dalka Uganda la gaarsiiyo sanadkan waxyaabo ka bedelan waxyaabihii hore shirkani oo si habsami leh u qabsoomay sanadkii koowaad ayaa la filayaa in sanad walba ay isku arkaan hogaanada kala duwan ee ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda. Shaafici Cusmaan Cali, Somali Cable TV, magaalada Kampala.